السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشرة امتحانها برشادة لقادة بايثون. عشر كان قدام بيوحان كشاكيني variables iyo data types iyo sida loo isticmaalo ayaan aragnay. Tusaale ayaan rabnaa inaan ka bixino maanta du'aal sida loo isticmaalo. Waxaan halkan nagu diyaariyay program cusub oo aan u bixiyay average. Programkan waxaan rabnaa inuu xisaabiyo laba number isku celceliskooda ama average-kooda. waxaan ku diyaariyay ama ku qoray structure-kii guud iyo sida uu programkii noqon lahaa. Waxaan rabaa inaan isku daydo. waxaan ciwaan uga dhignay sida ku muuqan soo comments dabcan wax meesha ku qoran program to calculate average of two numbers. program xisaabin doono average-ka laba number. talaabada koowaad wuxuu ku dhahay waxaa abuurtaa laba variable. adaan ka rabaa halkan iyo halkan inaan ku abuurto laba variable. talaabada labaad waxaan dhahnay labadii variable isku dar, labadii number wixii ku jiray isku dar, ka bacdina variable kale oo saddexaad ayaan ku kaydin doonaa. talaabada xigto waxaa xisaabisaa average-kii. average-ka dabcan waxaa lagu helaa sida aad taqaano laba number maadaama aan rabno labadii number oo la isku daray oo loo qaybiyay labo. stepka afraad waxaan dhahnay waxaa soo bandhigtaa natiijadii average-kii kaaga soo baxday. waxaan rabaa marka inaad joojiso videoga ka bacdina aad isku daydo in aad xalkii hesho. haddii aad xaliso iyo haddii aad xallin weysaba dabcan waa isla xallin doonaa. marka please pause gare videoga and try to solve it. isku day inaad xaliso, soo laabo markii aad xaliso ama aad xallin weyso. waayahay waxaan rajaynayaa inaad isku dayday aan isla xallinna marka. talaabada koowaad waxaan dhahnay waxaa abuurtaa laba variable. horaan usoo aragnay laba variable sida loo abuuro markii aan qoraynay halkan exampleska. saddex variable ayaan halkan tusaale ahaan soo abuuray. haddii aan halkan tagana haddaa fiiriso laba variable ayaan soo abuurnay. sidaan oo kale un ayaa u abuuraysaa. labada variable marka magaca waxaa taa u bixin kartaa sida aan anigu isticmaalo tusaale ahaan number 1 iyo number 2 waa dhihi kartaa. x iyo y waa dhihi kartaa. a iyo b waa dhihi kartaa iyo wixii la midka. marka magac macno samaynayo ayaan iska dooranaya. waxaan leeyahay number 1 is equal to number ku shub tusaale ahaan tiraan ku shubayna waxaan leeyahay 5. number 2 is equal to 6. 6 iyo 5 ayaan labadii number ku kala shubay. stepkii koobaad way ii dhamaatay. waxaa abuurtaa laba variable. variable walba magaciisii aad sheegaysaa ka bacdina equal value-gii aad rabtay inaad geliso. syntax-ka marka ama sharciga uu qaadanay sidaas noqonaysaa. variable name equals value. variable name equals value ayuu syntax-ku noqonayaa. syntax-ku waa sharciga iyo sida ay wax noqonayaan. now stepka labaad waxaa lagu dhahay add the two numbers. labada number isku dar lagu dhahay. labada number isku dar. haddii aan u laabano example-keenii hore si aan isku dar way fududaa soo maaha. number 1 lagu daray number 2. number 1 lagu daray number 2. sidaas oo kale aan dhihi karaa. waxaan dhihi karaa number 1 lagu daray number 2. now number 1 ku dar number 2. labadooda markii la isku daro 5 lagu daray 6 1 iyo 10. waxay la mid tahay meeshan anoo ku qoray 1 iyo 10. haddii aan 1 iyo 10 ku qoro programkayga halkan macno ma samaynayso. macno ma samaynayso. waxaan ka wadnaa ma dhihin 1 iyo 10 soo bandhig ma dhihin. ma dhihin 1 iyo 10 meel igu xaray ma dhihin. marka si aan uga faa'iideysto oo ay macno u yeelato control z ayaan riixayaa si aan u soo celiyo koodkii hore ii qornaa. si ay macno u yeelato number 1 lagu daray number 2 waxay ku fiican tahay ama inaan dhaho print soo daabac. waxaa soo daabacdaa number 1 lagu daray number 2. markaan 1 iyo 10 soo baxayso shaashada lagu soo daabacaya. marka ani hadda ma rabo daabacid ma rabo macno iima samaynayso daabacid. haddii aan rabo tusaale ahaan inay macno ii samayso waxaan rabaa number 1 lagu daray number 2 markii la isku daro natiijadii ka soo baxday in meel la igu kaydiyo. haddii aad fiirisa halkan waxaan dhihi karaa meesha aan dhahay number 1 waxaa iigu shubtaa 5. waxaan dhihi karaa number 1 waxaa iigu shubtaa 5 lagu daray 8. haddii aad fiirisa halkan calaamadda equation waxay leedahay laba qaybood. qayb dhanka bidix ka xigto iyo qayb dhanka midig ka xigto. bidix iyo midig marka la fiirina marka sida markaad shaashada fiirinaysa adigu labadaada bidixdaada iyo midigtaada ayaa loo fiiriyaa. marka waxaa la dhahaa calaamadda assignmentiga waxay leedahay left side iyo right side. left side-ka waxaa ka xigo badanaa variable. right side-ka laakiin waxaa ka xigsan karo ama sidaan oo kale number oo value ama waxaa ka xigsan karo expression ama waxaa ka xigsan karo variable kale ama wixii la midka. now waxaa ka xiga marka haddaa fiiriso 5 lagu daray 8 iigu shub number 1 waa dhihi kara 13 ayaa lagu shubayaa. kan marka waa expression ama shaqo hore u soo aragnay
expression markii aan example keeni soo muujinayna kan waxaan waa expression hore usoo sheegnay tusaale number 1 lagu daro number 2 ama 5 plus 8 ama wixii la midka marka expression kan ayaa waxaan dhahay halkan hadaa fiirso waxa igu shubtaa variable kan number 1 waa dhihi karay dabcan laakiin hadda waxaan rabay 5 oo kaliya kana waxaan rabaa marka shaqadan labadii number la isku daro 5 iyo 6 11 variable igu shub inaan dhaho sidee u dhahayaa marka variable kii magaciisa ayaan horay geynaya oo waxaan leeyahay variable lira sum is equal to number 1 plus number 2 sum marka isku darkii ayaa waxaan rabaa number 1 iyo number 2 marka isku qeedarto inaa igu shubto variable kan hadaa rabto result oo bixin kartaa variable ki iyo magaci kale ee kula qurxoonaado marka waxaan dhahay halkan labadii number isku qeedar ka bacdina natiijadii waxa igu shubtaa variable lira sum hadda waxaan haystaa marka sum 11 hadii aad inaad tijaabiso halkan waxaad dhigi kartaa print waxa soo daabacdaa variable ka sum waa dhigi karaa tusaale ahaan aan dhaho hadda rangare hadda fiirso wuxuu leeyahay 11 ayaa kugu jirto marka hadda uma baahan dabcan inaad daabaco laakiin wuxuu ku tusayaa in aad isticmaali kartid marka step number 1 waxay ahayd labadii variable abuur number 1 iyo number 2 aan u bixiyay 6 iyo 5 ayaan ku shubay labada number waxaad ku shubi kartaa dabcan waa bedeli kartaa mar walba average kooda lagu siin doonaa isku darkoodii ayaan xisaabsaday waxaan dhahay waxa igu shubtaa variable lira sum tilaabada saddexaad waxaa laga rabaa ayaa lagu dhahay inaa xisaabiso average average marka maxaa lagu helaa isku celiska waxaa lagu helaa labadii number markii la isku daro oo loo qaybiyay labo marka isku darkii labadii number intuu yeelaa variable lira sum ayuu igu jiraa Soomaan sum waxa u qaybisan leeyahay marka labo sidaana lagu helaa Soomaan average sum 11 igu jirta hadda isla soo aragnay labadii number oo la isku daray haddaan dabcan numberada bedelana uu isbedel doonaa 10 iyo 20 hadii aan ka dhigo 30 ayuu noqon doonaa sum marka sum wixii ku jiray oo ah labadii number oo la isku daray loo qaybiyay labo ayaa waxay noqonaysaa average marka hadda sida u qor sidii hadda kale waa waxa ma dhacayaan si aan uga faa'iideysto waa expression inta shaqadii waaye waxaan rabaa variable inaan ku xareysto variable ayaan halkan ku abuuranayaa variable kii waxaan u bixinayaa avg ka bacdina waxaan leeyahay avg waxa igu shubtaa sum wixii ku jiray marka loo qaybiyo labo natiijada ka soo baxdo magaca dafirs avg u bixiyay laakiin waxa u bixi kartaa darta average waa dhameystir kartaa isagoo dhameystiran waa qori kartaa isku celcelis waa dhigi kartaa Soomaali waa ku qori kartaa ay lafteedu ay ku shaqeynaysaa waxaan sameeyay tilaabadii koobaad number 1 ayaan abuuray number 2 na waa abuuray step koobaad labadii number ayaan abuuray laba variable stepkii saddexaad labaad labadii number isku daray natiijadii waxaan ku xariistay variable kale oo la sum tilaabadii saddexaad waxaan abuuray waxaan isu qaybiyay sum iyo labo oo ah isku darkii ayaan waxa u qaybiyay labo isku celceliskiisa aan u helo average variable ayaan ku shubay ugu dambeyn waxa uu dhaxaa soo bandhigtaa natiijada ku jirta marka variable kayga average ayay ku jirtaa natiijada way fududahay marka dabcan waa print inaan dhaho waxa soo bandhigtaa avg average soo bandhig average soo bandhig marka hadii aan dhaho hadii sida ma dhihi karaa ayaan ku weydiinayaa bal waxa soo bandhigtaa average oo dhameystiran soo bandhig hadii aan dhaho wuxuu ku leeyahay hadaa fiirsa calaamadahan guudan hore u sheekeynay wuxuu ku tusayaa error ama waxba ka qaldan qaladkaas intuu ka imaanaya marka magacaan aan qortay average programkayga meel aan ku soo qoray oo ku soo qeexay ma jirto magacaan rabo waa avg halkaana average ayaan qoray ma aqaan average ku leeyahay marka dabcan hadda ku adiso wuxuu ku leeyahay unresolved reference variable average unresolved reference average ma aqaani ayuu simply ay u dhigantaa haddaan ran dhahdana error ayuu keeni doonaa marka halkaa maxaa laga rabaa in dhaho avg waxaa ii soo daabacdaa avg wixii ku jiray marka haddii aan ran dhaho programkan wuxuu fulin doonaa tallaabada koowaad oo ah 5 ku shub number 1 6 ku shub number 2 labadoodii isku dar 11 waxaa ku shubtaa sum variable lira 11 waxaa u qaybisaa 5.5 ay noqonaysaa 5.5 waxaa ku shubtaa variable lira average waxa ku jira ii soo bandhig oo noqonayo 5.5 haddii aan ran dhahno waxaan rajaynaynaa 5.5 haddaa fiirsa laakiin xogaa ma qurxoono 5.5 kaligeeda ayuu soo bandhigay waxaan rabaa xawaya sharxaad inuu ku daro wixii aan qabtay shaqo badan ayaan qabtay spaceskan dabcan waxba kaama dhibayn saa u jeedid markii aan shaqo qabtona xogaa hal space aan buuxaya sida ku muuqanayso si aan u muujiyo in ay kala sigtaan oo koodkii uu clear noqdo laakiin dabcan waa un sharxaad iyo qurxin haddii aad waa isku dhaweysan kartaa waxaan rabaa meesha ugu dambeysay printiga intaan soo gabagabayn example-keena in aan wax yar sharaxo ka waran haddii aan dhahno sidii halkan aan ku sameynayay si u eg inaan qoraal soo qori karo ka bacdina qoraalkii aan natiijadii ku dari karo haddaan dhihi karo tusaale ahaan ka waran average-kii waa ka bacdina aan average-kii soo saari karo sidaas ayaan u malaynaya inay xogaa yar ka qurxaan leed waxaa leeyahay marka print waxaa soo daabacdaa the average is ka bacdina waxaan leeyahay avg
now haddaa isweydiiso ma shaqaynayaa programkan waxaan data aragnay average haddii aan qorno error uu keenayo soo maahayn haddana waa qoray ma shaqaynayaa isleedahay wuu shaqaynayaa haddii aad si saxa ila socoto maxaa yeelay waxa aan ku dhex qorno calaamadahan single quote ama double quote quotationka calaamadaha waxa aan ku dhex qorno waxaan dhahnay sidooda ayaa loo soo qorayaa iyaga marka ereygii meeshaan ku qornaa miyaa mise erey kala waaye waxba kama rabi computerku sidooda usoo qoraya soomaali uu noqon karaa waxaan dhihi karaa isku celcelisku waa kabacdina isku celceliskii ayaan soo qori karaa marka kan error maaha haddaa inta laakiin aan ku qoro average markaas ayuu error uu noqonayaa marka waxaan leeyahay control z si aan kii hore usoo celiyo haddii aan ran dhahno hadda wuxuu ku leeyahay haddaa fiiriso the average is 5.5 average-ku waa 5.5 si aad u tijaabiso hadda harta soomaaliya ku qori kartaan ku dhaha dabcan waxaad dhihi kartaa isku celisku waa ama waxaad dhihi kartaa natiijadu waa kabacdina average wixii ku jiray isoo daawac haddii aan ran dhahno wuxuu ku leeyahay natiijadu waa 5.5 programkan wuxuu ku tusayaa programkan in aad xisaabin karto average of two numbers adiga oo isticmaalaya variableskii fikradii ahayd ka faa'iideysanayo waayahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa casharkeena waxaan noo ballanaa xiisada xigto hadduu alla yidhaah waa ku mahadsantihiin waqtigiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh